بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. meel kasta naga daawanaysaan oo maaragtay adduunka aan nagala socotaan marka hore waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un. qof kasta adduunyada joogo waa dhimana, qof nafta hiba loo siiyay oo maaragtay inuu noolaado loogu talagalay ma ahan. wali kulli ummatin ajalan fa idha jaa ajaluha la yastaqiru sa'atan wa la yastaqdimun. ilaahay muxuu leeyahay kullu nafsin daa'iqatul mawt. naf kasta oo dunida la keenay xanuunka meedka way dhaminaysaa, qofku doona ha ahaade. haddii adduunyada lagu waarayna rasuulka alayhi salaatu wasalaam laga wadi lahayn asiga ahiba loo siin lahaa waa joogi lahaa. engineer Yariso Allah u naxariisto, in sabr iyo iimaan Allah naga wada siiyo. waxa uu tacsiyeena ummadda Soomaaliyeed, waxaan u tacsiyeena ehelkii dadka qaraabada ay ka geeriyooday. waxaan rabaa in la hadlo dadka walaalahayga oo social media isticmaalo. Yariso maanta waa dhintay, rabbigiisu hoos tagaya wax kasta uu dunidan geystay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ya kula xisaabtamaayo. wixii asiga loo geystan ilaahay subxaanahu wa ta'aala ya cadaaladeeda u haayo oo ma aragtay meel maanta wuxuu joogaa aan waasta iyo ehelnimo lahayn. waxaan rabaa inaan ka diga marka oo aan ka dardaarmo, war qofka meedka yaan lagu daba dhigin oo asiga oo ma aragtay maxaa la yiraahdaa dhintay been laga sheegin oo la qabsanin. Yariso waa dhintay maanta, ma kuu jawaabi karaayo, waxna ma kaa sheegi karaayo. dadka qaar waxay rabaan inay social media iska sheegaan ma ahan. Yariso wuu dhintay, sababtuu ku dhintay dowladda Soomaaliya iska lahayd, ama dayac amni ha noqdo ama dil qorsheysan oo ayada ay ugu tala gashay ha noqdaan. dadka ugu horeeyay oo tacsiyada u dhigana ayaga way dowladda Soomaaliyeed. anaga waxaan sugeynaa waxyaabihii ka soo baxo baaritaanka iyo ma aragtay laamaha amaanka waxay wadaan, inkastoo aan Cabdicis ahaan 100% aan ku qanacsaneen. Yariso dowladda federaalka Soomaaliya ayada dishay, ama dayac amni ha u dhinto ama dil qorsheysan ha lagu dilo. annaga maxaa nala gudboon marka dadkeena social media isticmaalo oo public figure-ka oo live ka soo galo oo dadka wax u tabiyo? waxaan la gudboon wax kasta oo sharafta iyo sumcadda qof ka dhintay taabanayo inaan ka waantoono, qofku doona ha ahaado. ma ahan wax qof dhintay ka hadlaaya anaga inaa ma aragtay aan ku dhiirano oo dadkan aan u gudbino. no, aniga taas waa diiday. walaalahayga social media isticmaalo oo maalin Yariso isqabteen ama boosti ka soo qoreen, waxaa kula dardaarmaa horta ilaahay subxaanahu wa ta'aala asa qulubta og waxay ula joodeen wixii ay soo qoreen inay ka bixiyaan social media. wixii ay soo qoreen inay ka bixiyaan, ama yesman ha ahaato ama hadal xun oo qofka shakhsiyadiisa taabanaysa ha ahaato, ilaahay subxaanahu wa ta'aala cafis ay weydiistaan. aniga Cabdicis Maxamuud Kulmiye dadka waxaan ka mid ahay siyaasadda dowladda federaalka ka soo horjeedo. engineer Yariso dadka dhaliilaan ka mid ahay, dadka waxyaabaha ka soo qoraan ka mid ahaa. aniga ugu horeeya wax kasta oo gacanteeda aan ku qoray social media waa ka bixinaya. sababta aan uga bixinayo waxay tahay qofkii aqriyo markuu qofkaas dhintay kadib adigoo xumaan qoraysid dambigeeda lagu qoraa adigaana iska leeyahay qof dhintay oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala dimadiisa galay aad wax ka qortay wixiina wali social media ku jiraan. ilaahay maanta wuxuu fursad noo siiyay annaga oo nool oo nafta qabno inaan awoodno waxyaabihii aan gacanteena ku qoray inaan dib ula laabano oo aan ka tirno oo aan dadka u sheegno naceeb iyo isir naceeb iyo qof wax loola jeedo inaysan ahayn ay ahaayeen wax la rabay in wax lagu toosiyo, wax lagu dhiso, wax wanaagsan lagu sameeyo, dadkaas ummadaasay loo doodayeen wax loo qabto. maanta inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un. Yariso ilaahay horta ha u naxariisto, laakiin waxyaabaha aan ka gubanayo waxay tahay maalin kasta 100 Yariso inaan ma aragtay aan duugno, 100 Cawil Daahir Salaad inaan duugno, 100 Elman Cali Axmed inaan duugno.
boqol qof oo sharaf leh oo ma aragtay sida ma aragtay maxaa la yiraahdaa ii sheeg dadka wadankan wax u bartay oo ma aragtay wax u soo qabtay intaan duugno haddana dhiiggiisa uu raqiis noqdo ani Cabdicasiis Maxamuud Kulmiye aad ay dhibaysaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo dadkeeda social media u qaybsan waa mahadsantihiin saakaya idin sheegay arintaanaytii madaxweynaha jinsiyadda ka tanaasulay iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo baasaboorka Mareykanka celiyay ma weelo waay dadkan ina ma weelisiina rabtaan ummadan ma weelo ma u noqoto ummadan ma weelo uma noqoto wixii ay sameey rabteen waa sameeyeen ninka odayga hadlay wuxuu yiri macalino wixii afali rabto waa fartay wa in faatakum shay'an marka wixii waa isku dhamaadeen waxaan ka hadlaa dadka damiir kale oo aqliga leh oo wixii aan ka hadlayo maanta fahmi karo mowduuciga aniga siyaasad kuma saabsano mowduuciga dagaal shakhsiyadeed kuma saabsano mowduuciga wuxuu ku saabsan yahay xaquuq dad ilaahay subxaanahu wa ta'ala meel ku abuuray oo degan ay leeyihiin xaquuqda dadka ay leeyihiin maxaa waaye kow qofka bini'aadanka sharafkiisa inuu ma aragtay iyo karaamadiisa inay dhowrsanaato oo aan lagu xadgudbin qofku uu doono ha ahaado ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa qofkan abuuray in la caayana wuu nazahay oo ma aragtay wuu diiday karaamuu siiyey wuu abuuray bal u fiirso maxaa u malaynaysaa guddoomiyaheeni maanta meyd waaye ilaahay ha u naxariisto wuu dhintay shalay toole ciidama ilaalinaya xafiisaa lahaa marka ninka masaakiinka oo buug iyo qalinka wato Cabdicasiis Maxamuud Kulmiye camal oo magaalada Muqdisho joogo yaa u maqan odayaashii baarlamaanka maanta noo jooga soo doortay haddii argagixisada intay u tageen al-shabaab ma aragtay maxaa la yiraahdaa intay u qubayeen dhar u libiseen oo ay daahiriyeen oo ay ka toobad keeneen waxa ay sameeyeen waxaa dareemaysaan waxaan la dhoodhoobaya dhan NGO labada dhinac la is og yahay inay tahay dilkaanayti dowladda hoose ka dhacay gobolka Banaadir ka dhacay guddoomiyaal qiimo badan aan ku weynay oo ma aragtay ilaahay ha u naxariistay maanta naga hooseeyo oo guddoomiyihii degmada waa beri ka mid yahay guddoomiyadii degmada Cabdicasiis ay ka mid tahay Shingaani ay ka mid tahay qorshaha loo dhigay dowladda waxaa ka dambeeyay federaalka Soomaaliya qof kasta oo la qaado oo diyaarad la saaray oo qadar la geeyna ma soo laabanayo laakiin ma dhahayo maxaa la yiraahdaa ii sheeg cisbitaalkiya lagu dilay maxaa la yiraahdaa dilkiisa hebela ka dambeeyay waa dhinta ninkaanayti ilaahay subxaanahu wa ta'ala ya tiisa ma aragtay meeshay ku egtahay ogaa Allah u naxariistay Yariiso qabrigiisa qeyr Allah ka siiyo laakiin waxa idin cadeynaa engineer Yariiso markii gobolka Banaadir laga qaadayay oo ma aragtay cisbitaalka la geenayay iyo markii cisbitaalka laga qaadayo oo qadar loo qaadayabo rajadiisa aad uma badneen oo ma aragtay dhaawac culus oo qabiyay waxa la rabaa marka aad dagaalamaysid xitaa ina xaq aad ku dagaalantido qof naceeb iyo sir naceeb waxa rabta aad u sheegin ma raba inaan ku dheeraado waxa raba inaan warkayga ku soo gabagabeeyo qof kasta oo walaal oo muslim oo Soomaali oo social media isticmaalo oo gacantiisa wax ku qoro oo ifiirsanayo shalay waxa gacantaada ku qortay maanta fursada u haysataa Yariiso Allah u naxariisto wax walba oo asiga wax u dhimayo sharafkiisa iyo dadnimadiisa Facebook-gaaga ka nadiifi oo ka tirtir ana kooke Cabdicasiis Maxamuud Kulmiye ana kooke waxyaabaha gacanteeda aan ku qoray aniga oo Yariiso aan kula hadlay ama wax aan ula jeedo ma aragtay toosin ha ahaadaano ama wax aan ula jeedo dhiirigelin ha ahaadaano wixii aan u arko maanta qof dhintay oo Ilaahay dimadiisa galay inaysan ku fiicneen aniga gacanteeda ku tirtiraay mana ka xishoonayo inaan tirtiro laakiin waxaan ka xishoonaa Ilaahayga qaaliqa ahaa oo i abuuray oo og yani quluubteeda waxa aan ula jeedo waxa aan qoray in Allah ya'lamu sirra wa ma yakhfa wax walba oo quluubta ku jiro Ilaahay subhanahu wa ta'ala ya og laakiin in aan idin la dardaarmo waay fariintan hal gaarsiiyo dadka walaalahayga oo social media isticmaalo oo Daahir Calasow uu kamid yahay oo aniga aan kamid ahay qof kasta oo social media isticmaalo oo maalin Yariiso shakhsi ay isku qabteen ama siyaasad ay isku qabteen maanta wuxuu fursad u haystaa waxa uu gacantiisa ku qoray inuu tiro cafiska iyo ma aragtay cidi saxana cadaalad Ilaahay agtiisa taala kama hadlayno shalay hebel laga qaldanay maanta hebel qaldanay laakiin waxaan ka hadlaynaa maanta qof dhintay oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dimadiisa galay oo qabri ku jiro iyo qof nool oo adduunyada korkeeda taagan oo fursad u haysta qaladkii uu shalay galay inuu saxo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu dhawaado marka aan saas ku dhahayo marka shalay wax xun aan qofka aan ka qoro oo maanta uu dhintay oo asiga oo meed qof nool intuu akhriyo
niyadda uu iska yiraahdo wallahi saasoo ahay oo xumaan qofkii ku nisbeeyo waxay noqonaysaa wax adiga aalahaanaysid mar walba natiijada ka imaato natiijada ka imaatane ina qof bini aadana maxaa la yiraahdaa ii sheeg xaq iyo xaq dara aan lagu caynin mararka qaarkood waa fududaana mararka qaarkood qofaan wax uusan rabin aan ku tilmaamna laakiin dabeecadda bini aadanka ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa sidaas noo abuuray ilaahay wuxuu leeyahay in kuwa qaldama oo haddana kasoo laabta oo ka toobad keeno kuwaasaa addoomadeeda ugu jecelahay khayrul khadaa'ina tawaabiin ani dadka waxaan ka mid ahay marka maanta jecel walaalihiis fursadan ay haystaan inuu tusiyo kana faa'iidaystaan aniga waxaan la hadlaa dadka wax ku qoro social media dadka waxaan la hadlaa caanka ee live-ka soo galo social mediaha wax ku qoro wax kasta oo aa qortay adiga og maanta fursada haysataa aniga koow ka ah ani kooban ka ahay anaa soo qoray cabdicasiis maxamuud kulmiye laakiin ulajeedka aan ula jeeday macnaheeda ma ahan inaa asiga sharafkiisa iyo familkiisa iyo dadkiisa uga weligii aniga shakhsiyad ma caynin waxaan dhahaa waa lagu shaqaystaa meesha u socdo ma ogo dadka been u sheegay maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisu jira ilaahay cafis weydiisana maxaa la yiraahdaa ii sheeg engineeriso waa naga wada dhintay dadka oo xamar jooga marka oo shalay siifiyada la ordaayay oo maaragtay injineerka booskiisa inay galaan rabeen injineerka maanta waa dhintay midin hortaagno ninka siifi qaadanaya ha qaato dameer xumadii aa ku noolaan jirteen ku laabta siifiigi qaata adigana raadi booski in beri lagugu dilo kan kaa dambeeyo ha lagu dilo ha noqoto meel dhimashada dhaxal ah ugu yeelateen oo idinka leela idinku dilo because haddaa ammaanka ka shaqaynin ogaanin meesha u socotid waxa uu nooshahay aa ogaanin weligaa waxaa ahaanaysaa qof xoolo camal ah oo caqliyan iyo maskixiyan dhintay dhimashada ma ahan qofka inay nafta ka baxdo qabri geli dad socdaa jiraan oo jaakado wataan laakiin dhintay kuwaasaa idinku xisaabinaynaa walaalayaalow ma ku dheeraanayo waxaan rabaa leefka inaan ka baxo waxaan la dardaarmaa nafteeda waxaan la dardaarmaa naftiina qof kasta oo maanta adduunyada joogo oo yariisoo shalay wax ka tabanayo horta ha iska cafiyo asaa adduunyada ku heray ninka shalay gacantiisa wax xun ku qorane ha isku dayo waxay xumaa uu qoray inuu ka bixiyo ha loo duceeyo inuu ilaahay jannadiisa geeyo ehelkiisa iyo dadkii uu ka tagayna sabr iyo iimaan ilaahay uu ka siiyo aada u mahadsantihiin inta aan rabay inaan idin dhaho iyo risaaladii aan idiin soo gudbiyane tanay ahayd waa idiin soo gudbiyey yariisow allah u naxariisto ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaad naga jeclaaday yariisow waa dhintay asigoo shaqaysanayo oo ma aragtay maxaa la yiraahdaa waajibkiisa shaqo gudanayo oo dhintay laakiin waxaa ogaatiin magaca nabad iyo nolol maalintii uu yimid magaaladaas muqdisho ama dadkan ay la baxeen inay bilowbatay haldoorka in la siibo oo halhal loo siibo wax nabad iyo nolol la yiraahdo ma jiraan dowladda federaalka soomaaliya waqtigeeda wuu dhammaaday dowladnimada iyo nidaam soo dabaqidii dalka soomaaliya way ku fashilantay gobolka banaadir dadka degan 99% assassination lagu dilaa dowladda federaalka ka dambeyso ayada ammaankoodii dayacday ayada laga rabaa maantana inay caddeeyaan kaamirayaashii ay qaadeen waxa ku jiray kaamirayaashii ay qaadeen waxa ku jiray dadkii ka dambeeyay weerarkan siduu ku dhacay qofka siduu ku soo gudbay sababtuu qaraxa u dhacay waxaasoo dhan ayagaan ka sugaynaa odayaasha dhaqanka marka oo allah u naxariistay beel ahaan ama dhaqan ahaan yariisuu ku matalay oo 4.5 ku matalayay maadaama guddoomiyihii u dhinto dad kalentoo sharaf lana ay ka horeeyeen oo shalay idinka aamusteen isku daya ilmahaas agoonta ah oo maanta aabahood oo dhintay cadaalad inay helaan ay ogaadaan qofka aabahood dilay iyo sababtoo u dhintay al-shabaab ma dilin gobolka banaadir al-shabaab ma soo gelin dad dowladda ka mid ah oo gobolka banaadir ka shaqeeya oo ammaankeeda qaabilsan oo mas-uuliyad hayo yariisoo dadkaasaa dilay dowladda federaalka hadday rabto inay sheegtane ayadaa laga rabaa inay sheegaan haddii ay sheegayninne ayagaa laga rabaa inay ku adkaystaan taas annaga nama qusayso ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa cadaaladda taallaa laakiin barnaamijkan maanta suuqa la soo geliyey oo ma aragtay maxaa la yiraahdaa madaxweynaha jinsiyadii mareykanka iska dhiibay mareykan weligiis jinsiyadiisa ma dhiibayo yariisow allah u naxariisto wuu dhintay farmaajane maalintii kursigaas oo koray uu damiir ahaan dhintay
hadduu wax dhiibayna maalintuu imaada inay dhiibay ahayd. barnaamijkayga tacsi waaye, siyaasad inaan galo ma rabi, inaan ku dheeraada ma rabi. qof kasta oo wax tabanayay ma aragtay maxaa la yirahdaa injineerka maanta waa dhintay, allah u naxariisto, iska cafiya. waxaan rajeynaa ilaahi subxaana watacaala inuu ahlu janno ka dhigo. annagana wax walba oo qalad ama gacanteena ka dhacaan ama afkeena ka dhacaan ilaah cafis weydiisanaynaa. walaalow fursadda ay haysid ka faa'iideyso, waxaa gacantaada ku qortay isla gacantaada ku tir. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.